ibnuhu herdilan damaydihiwa amaan ku dhigan iskiidisiwa gabeel quruxlaayo damayn kariwa abka durmaya biga dimiwa kalsoonida dheer la dhiibi kariwa dhaxdeena naami kadef heliwa idowr mooye idaf maqlewa jacayl dhaxalgala waxdhaamalawa jacayl dhaxalgala waxdhaamalawa mudan sida kul egta arrimaha wiilkaagan haddii aan isha ku hayo adiga waxaad samaysaa hawsha aan kuu diray oo keliya ka adkaaw gabadhii guriga kale ma u wareejiseen ii sheeg haa waan u wareejiyey katiinka horteeda ku xiranna waa furi kadibna walaasheeda ayaan u dhiib waxaan uga cagjuglay haddii hawshaan ka soo bixi wayso walaasheeda inaan dilaayo aniga waxaa muhiim ii ah labadaas dheeman inaad adiga gacanta ku soo dhigtaa waa waraysigii Elif Denizar kuwan dhammeeyaan ها ما خوي العك ولا عديشان لحيشنا ها ما بدنا ها ورقوينك waxa kugu sabxiyo waa kala hadii aan ogaal lahaa black and white ayaan qaadan lahaa hada mushaarkiga nus kunus ba adiga qaatay oh gabadheeda saacadan diyaaradii way caga dhigatay haddii caga dhigatana sideen ku ogaanayna annaga waayo iyada meel naga soo wacda ma laho taleefanka naga wicleeda way daayacday gabadheeda ma ku soo wacday may hooy taleefon ayaa laga soo wacay Roomo macnaha ganacsiga xaqiisa laga la hadli rabaa halo hay gabaryahay in muddahay adiga ilmaada soo hadlin hoolii aan kuu diray ma ku guulaysatay maya oo meeshii dheemankaan kaa sugay waxay sug baan kula soo hadlaayeen halo hay dheemankii ma heshay aniga meel waliba waan ka raadiyay waana waay xaggee ka keenaa waa ku salaami yaa kula joogo yaa kula jooga ii sheeg qof ila joogta ma laha aniga keligay ayaa ahay gartay Elif arrimihii qof aad kala hadashay ma jiro aniga qof aan wax u sheega ma lahan keligay ayaan ahay heshiiskeena ka waran intuu marayaa ii sheeg aniga waan ku dhaarnaa haddaan nii aaminin qof uma sheegin wax okay ka gudub jecelkaaga ka waran jecelkaaga siduu yahay adiga soo ma dhihin ninkaas ka har waan ka har aniga lama socdi hadda Elif gabar fiicanaad tahay walaashaada unax arrimaha aan ku diran waa inaad ku dhaqaaqdaa walaalo waan ku baryaa aniga walaashay waxba iga gaarsiin haddii xitaa luulkaas aan ku waay lacag ayaan haaya lacagtaas ayaan ku siinaaya waan ku baryaa walaashay wax dhib aan u geysanin walaalo aniga dhaymanka haddaan waay lacagaan ku awooda waan ku baryaa walaalo walaashay wax iga gaarsiin halo 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 Elif halo وانكم مقلع هذا
haddaba hadalkayga si fiican u dhigay 8 fiidnimo waxaa noo ballan ah xeebta waayahay 2 saac habeenimo waa imaanaya waa ha isku balan day inaad soo lagooso darawal gabadheeda iliif meeshii aadan ii sheegi kartaa adiga way soo socotaa usha iigu dhacdaa agteeda taa adna abaal miyaan kaa helaaye weli indhaheyga oo intii aa ka quboose usha iigu dhacdaa agteeda taal adna abaal miyaan kaa helaa indhaheyga oo intii aa weli ka quboose martiin uf maydka maxaa sidaa ugu sii rafaadisay aniga hawsheeda waa dhammaystay ninka oberation ayaan ku sameeyey wixii oo dhanna waa ka soo saaray calooshiisa markii hore aan wax soo gelinaya eber ayay ahayd haddana waa kanee waxaynayaan kala baxni hawsheenan oo dhan sidai aan ugu talagalnay ayay u dhacday wax walbana waynoo hagaageen caloosha bini'aadankana waa meesha keliya oo wax lagu qarsan karo maxaa sugay iga bixi iliif howsha sida loogu talgala ayay u qabatay laakiin weli dhaymanka maysalin waqtigeeda ootin ayay ku dhammaysatay ha iska oysa iyada hadday doonto annaga waxaa keliya noo daran waxaana inaan gacanta ku dhignaa waxay la tahan gabadhaas inaysan nii jibinaynin matiin mid dhegayso qofka bini'aadanka inuu asiga wax kaa cuno maahine inaad asiga wax ka cunto lagama yaabo mar walba wuxuu diyaar u yahay inuu adiga wax kaa cuno arrinta faamiliga way qasan tahay midda kale waxaan doonayaa arrintii axmed dinsaari inantaas waxba inaysan ka jirin midda kale waxaan doonayaa arrintan ku idhaahdo keliya inaad joornaalka ku soo qorto ma garatay adiga taasa ka cabsana anigaa ku soo qoraayo wax walboo ii dirtane say taha okay dhibaato ma laha waa sii baxayaa jaaw okay waayahay macasalaam laakiin sug bal wax yar sug oo hadiyadaadi weeyaane qabso maxaad isku soo dhibtana may tani waa caadi shirkadayduna sanad walba way bixisaa hadiyadaha ma garatay marka wax dhiba ma laha qaado mahadsaneed waan sii baxay okay baashaan midda kale jeeg ayaan kugu soo tirayaa lacagtaya qof carruurteeda dilaysa miyaa jirtana ها ولبا تي في اي soo dhigtay iyadoo carruurteeda gacanteeda ku dilaysa waa arin mucjiso leh cumar ayaa isoo wacaayo haa cumar intee joogtaa shaqada ayaa hadda ka soo baxa aniga waa iska caadi ma kulmi karnaa labadeena waa kulmi karnaa maxaa okay dhib mal haddaad ii maadid wax weyn maaha kole gurigayga aniga eegayga keliya ayaa joogno waaya caawan ku imaana okay waan ku sugayaa soo dadaal هاي أنا قلت ما يجي تكتي. أديك سنت كاجا تجايانا عمر أنا عشاء كعزوم هذا أرتنا إيمان كرتها عشرة وحوين معها محاك وقول عنا حتى عنقان أوكي أنا قم بحي كل عمر وحكون شيء يا ربي أديك محاك ويا ها عمر وحكون شيء بس كل ده عزوم وروح بقى مش يجي أيام كنا واعزوم وكلية محاك وقول أديك سكر قارقان حتى عنقان بك بضل أنا عمر أيام سر وكل ما ينحصل لقمة يوم مدرعين ومقلو ما حد عشقني ميا لقى سارايا مايا ومقلي كلام حدا أنا عمر عادي أول شقين جرنا وحوينا معها ولقي الناس أصحاب أيان أهن ها وانا وقعتاس دي قيادك يبيحي يا اوكي واكي وان بحي
ziraan in aan ku lahla ayaa doonaya hadhood ayaan wada hadlaynaa maanta shaqada waa iska casilay ilaa iyo maanta mishaar ayaa sugayay shaqo cusub ayaa raadiyay isla markiina waa helay go'aanka aa qaato koley ana kama hor imaanayo waana ku faraxsanahay waxa go'aanka adiga ayaa iskala soo maaha wax walbana waa dul qaadan karaa teeda kale waxaa ogaataa in cunug yar lii dhalo weliba cunugaas wuxuu iga baahan yahay beel hambaliyo shaqadan waan kuugu hambaliyeynayaa iyo weliba cunuga lagugu dhalay farxad ku noolaada labadiinaba nasiib wacan mahadsan zerin adiga iyo reerkaagaba farxad ayaa idiin rajaynayaa cimrigan inta ka dhiman waa maasantaas sidoo kale way wanaagsan tahayba hadduu u sheegan dib noogu soo celiyo maalmahan dambe hooy wax weliba way naga dhumaayaan annaga waqti xun ayaan ku soo aadnay macaanteedii inaa isdhibtimaba loo baahnaba saasoo dhan ha u fikirin aniga waan ogahay maalmahan waxba inaga lumaayaan bahaaroo keliyana ay noo hartay laakiin bahaar annaga ayaan soo tarbiyeennay gacanteena ayaana ku soo barbaarinay saas la ajigeeda ayay annaga noola joogtaa سودو حبيبي والله سنت حبيبتي aniga maanta waxay isdhahay mudanaha ma ku fasaxi doono balse wuu isoo fasaxay si aan adiga waqti dheer kula qaato waan kuu soo xiisay xabiibti xabiibti aniga ma kula sii joogi kara sababtoo ah goordhow shirkadda waxaa ka bilaabanayso kambeyn cusub marka aniga waxaan ku qasbanahay xafiiska inaan joogo liifan aniga waan ogahay shaqo fiican inaan tahay sanad micna busaarad tahay dee midda kale gurigaaga ayaan tago waxaan arkin inaan alaab fiican ku oolin oo aad busaarad tahay gacaliso waxbaan rabay inaan kuu sheego balse aniga waan cabsanaya oo waxaan ku fikira haddii aan kuu sheego inaan adiga ku waayo marka malahay awoodaan kuugu sheega arrinkaas aamus baan ku guur xabiibi innaga busaarad iyo waxaas inama kala kaxaynayaan taasina wax weyn ma aha waxay naga dhexeeyaana waa jacayl jacaylkeennuna ma dhammaanayo busaaraddii waxaasna waa laga baxaya qalbiga khayr u sheeg marka oo isdeji xabiibi ma garatay anugu mar kasta waan ku jecelahay shalay waan ku jeclaa berrina waan ku jecelahay xabiibti aniga sidoo kale waan ku jeclaa balse waxaan ku malaya dadka qaar oo dadka danahooda oo keliya ku fiirsan wax yar yara sug bal waan soo noqonayaa maxay yihiin waxaan warqadan qabsa bal fur bal soo daynsatay deen ah maxaad ku hadlaysaana midda kale ma ogtahay bankiga inay lacag badan ii taalla aniga mar kastaad lacag u baahatana waad i weydiisan kartaa macaani ilaahay dartii wax walba ku ilow waad mahadsan tahay goordhow aniga guri ayaan heli rabaa weliba bisha ugu soo horayso marka adiga dhegeysa adiga waxaas wax weyn maaha taasina dhib ma laha waad helaysaa insha allah weliba wax intaa ka sii badan dhegeyso weli ma isku dada arrinka saaxiibtaada inaad xaliso maya waxaan soo u malaynaya inay neefiin heshay gabadhii aabbaheed la dhimatay iyo arrintii ka dhexaysay inay ganacsi uun ahayd xitaa waxay tagtay inantii dhimatay gurigooda waxayna ka soo ogaatay runtoo dhan iyo sheekadu siday ahayd marka booliiska wax arrin oo u sheegtay may jirin
waxaanse ka baqayaa inay reerkani ay faqriyaan innaguna aynu faqrinimo aynu ku biirno dee booskooda aynu innaguna ku dhammaysanno marka taasi sida isku beddelaysa anuu garan maayo xabiibtu waxaas dhib malaa iyagaa xalismi doonaa anigana wax ma lagu quseeyaa maxaad ku hadlaysaa maxay tahay waxba nagama quseen miyaanad ogeyn reerkaasi anigoo yar oo ciyaal inay soo korsadeen oo ay soo gacan qabteen wax walba oo ciyaal la siiyo farxad iyo alaababa hadday noqoto inay anagii siin jireen ma waxaad doonaysaan ana magacidlo kaga tago oo aan ka tago ka dhaqaajiyo taas ma dhacayso maya baan kugu idhi taas wax soconaysa ma aha waa inaan arrintooda ka fikiraa oo eegaygii aawayna xaguu ka baxay oo baahi ayaa ku heesoomaha cunto ma cunin ani kaale ii mooyaaqa eegayga idinka gudaha u sii gala hore wax hagaagsan male kolley hadda ayaan walba diyaarinayaa fadhiista shaahi ayaan ii soo diyaarinayaa fariiso saaxiib fariiso waryaa eygan dambasta ugu soo qubaysa iga qabo iga leexje eygan eegayga kaalay cumar adiga iliif waad raacdee maxaa dhacay kadib iliif makaan raacay aniga waxaan soo ogaaday inay aaday guriga isbeel waxayna iska dhigtay gabadhaas inay saaxiibo ahayn teeda kale waxay isku sheegtay maclimad inay tahay gurigeenna box ka soo qaaday boxkaasna markaan fiiriyay aniga box wax ku jira ma ahan micnahayga anigaa ku fahansiinaa gaarigeeda xataa waan baaray waxaan ka helay luulkan waana faalso isla luulkan oo kalena waxaan ka helay guriga isbeel marka waxaan ogaaday axmed inuu ka ganacsan jiray luulkan faalsada ah ilan wax kale ma qaban jirin weli waxaan soo ogaaday dheemankan oo kale axmed inuu hayay dheemankaas haddii aan gacanta ku dhigno wax walba inuu fudaanayn aflaamta hindiga maraykanka dowladda iyo weliba musalsalada oo afkaaga hooyo ku tarjuman waxaad ka daawan kartaa famproj.com hallo horay u sii soco walwalka iska daa hadda waxaa ii caddaata adiga dheemank inaadan weli gacanta ku haynin dhib ma laha aniga adiga heshiis ayaan gelaynaa maadaama oo adiga aad rabto walaasha inaad badbaadiso anigana gacanta aan ku hayo dhib ma laha waa wada heshiinaynaa heshiiskaas muxuu yahay howl yar ayaad noo qabanaysaa howl yar maxay tahay hoosh yar waa suuq madow sidaasna uma dhib badno aniga sideen u qabtaa sida u qabaleed iyo wax wal meeshaa ka bilaawleed aniga ayaa kuu sheegaya marka adiga waxaan kuu sheegay oo keliya waa inaad ku dhaqaaqdaa soo soco waxaan kuu dhiibra waa cad doolsho oo kale waad qaadaysaa kadibna rooma ayaad geynaysaa waan la socdaa adiga deyman badan in lagugu leeyahay fillo cusub ayaad dhisanaysaa waad taajiraysaa heer sare ayaad noqonaysaa yaa miila kaftamaysaane sababtaan kula kaftamaya maxay tahay war mala socota adiga aabbaa inuu annaga nala shaqaynaa muddo sanad gudaheedaan inuu ku taajir marka adiga waddadaas ayaad ku taagan tahay maxaa tiri aabbahay miyaa idinkeeda la shaqayn jiray isdaji adiga aabbaha annaga ayuu nala shaqaynaya maxaad la taagan tahay maa socono soo soco aniga markaan ogaaday adiga in lagugu sirqarsan karo darteeda ayaan wax walba kugu soo bandhigay waan kugu kalsoonahay aniga midaan ma samayn karo waa sharci darro wax sharci darraan inaan sameeyo layma ogola sideen ku sameeyaa waxaan u malaynaa hadalkayga inaad qaabili doontid waqti badanna waan kugu khasaaray middaas la soco marka hore ila hadal walaashay caafimaadkeeda siduu yahay ii sheeg bal walaalow adigoon iga aamusan walaashay caafimaadkeeda iga waran ila hadal bal horta walaal maa ila hadashid walaashay caafimaadkeeda siduu yahay anigana ogaadaan raa walaashay caafimaadkeeda
ah